madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed oo iscasiray Isniintii oo iminka la sheegay in uu caasimadda dalka joogo iyo waxa uu ku sugan yahay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida ayaa maanta wararkooda ugu dambeeyay waxa la socday Mawlid Xaaji Cabdi oo hadda stuudiyaha ila fadhiya. Mawlid waa mahadsantahay marka hore bal nooga waran xaaladda xarunta dowladda deegaanka magaalada Jigjiga waa sidee Cabdul waa mahadsantahay wararka ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in labo arrin oo kala duwan magaalada ay ka jirto dhinac waa dadka oo wax hubanti la'aan ku sugan iyo waxa dhici doona isla markaasna ay dhigo u taagan yihiin dadka taasi waxay keentay in magaalada ay ka baxaan dadka aan Soomaalida ahayn ama qowmiyada Soomaalida ahayn sida Amxaarada oo kale ama dadka ka soo jeeda qowmiyadaha kale waxa la sheegay inay aadeen magaalooyinka Harar iyo waliba Addis Ababa oo kale waxay taasi ku la xiriirtaa baa leeyahay sugnaansho la'aanta wax dhici doona oo kale marka waxay dadka qaarkood isla dhex marayaan in ay ka qabaan walwal Soomaalida laftigeeda oo bilowday in qoysaska caruurta iyo haweenka laga saaray magaalada gaar ahaan raggiina magaalada ku soo hareen marka taasi marka la fiirsho waa dhinaca dareenka xiisada wili jira dhinaca kale markaad fiiriso maanta waxay ka duwan tahay maalmihii hore ganacsiga baa dib u furmay meelaha qaarkood magaaladii waa jidadka la nadiifiyay xitaa qowmiyadaha Soomaalida iyo dad kale ku jira qaarkood ayaa waxa la sheegayaa inay ka qayb qaateen arintaasi oo ay magaalada jidadka nadiifinayeen si markaasi socodka u bilowdo dadku si teel ay isku dhex marayaan gaar ahaan dadka kala duwan qowmiyadaha waxa kale oo idina jirta in xisbiga talada maamulka haya ay hadda shir ku leeyihiin xarunta madaxtooyada waxaana jirta sidoo kale in shirkaasi waxa looga hadlayo ilaa hadda aan BBC-da loo sheegin inta marka laga soo gudbo waxa jirtay ciidanka Liu Police-ka oo ku sugnaa deegaanka leeyahay Oballe oo dhagax buur u dhow inay hadda ka bixeen halkaasi oo la sheegay ay dhinaca deegaanka Shilaabo lama oga ujeedka waxa uu yahay iyo xaaladaasi waxa ay ka dhigan tahay internetka magaalada ka go'an yahay iyo guud ahaan gobolka oo dhan waa maalintii saddexaad arintaasina waxa la sheegay inay tahay arinta la xiriirta dawladda xaggeeda inay ka timid laakiin telefoonadu way jireen maanta waxa la sheegay in magaalada laba diyaaradood oo miig ah dusha u soo magaalada dusha xawaareeyeen xagga sare waxa yar kadibna ay baxeen lama oga waxay tahay ka macnanta arintaasi marka xaaladu hadda sidaas ay ku sugan tahay waa war fiican aad iyo aad baad u mahadsan tahay madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamed waa uu iscasiray warar waxa soo baxay shalayto matalan lahaa waa la qabtay iyo lama qaban maanta oo Arbaca waxaanu ka ognahay xaaladiisa ilaa hadda mas'uuliyiinta xilka loo dhiibay gaar ahaan madaxweynaha BBC-da waa isku dayeen in la xiriirto waa inoo suurtagal weeyaan la hadalno gaar ahaan mas'uuliyiinta deegaanka sidoo kale waxaynu isku dayeen la hadalno dawladda federaalka qudheeda iyo dad Addis Ababa ku sugan dhamaantoodba way inoo suurtagal weeyaan inaanu helno laakiin wararka BBC-da ee helayso xogogaalka waxay tilmaamayaan in Cabdi Maxamuud Cumar uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa waxa markaa jira warar iskhilaafsan oo ah inuu xiran yahay iyo warar oranaya xabsi guri ay ku jira iyo warar sidoo kale oranaya amni ahaan ayaa halkaas ninkaasi ugu sugan yahay marka ilaa hadda ma cadda waxa kale oo BBC-da soo gaartay war tilmaamaya in mas'uuliyiin oo kamid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa oo la sheegay sida hadalka loo dhigay in dawladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ay kala tashanayso xaaladda gobolka lama oga in arintaasi ku aadan tahay arinta ayaha mustaqbalka xaaladda gobolka umbalay laakiin xaaladda gobolka nabali waxa kale oo sidoo kale wararka BBC-da goor dhaweeyta heshay tilmaamayaan in diblomaasiyiin ajnabi ah oo aan ahayn Soomaali ama Ethiopian ay sidoo kale xaaladda gobolka kala xiriireen mas'uuliyiinta waddanka Ethiopia gaar ahaan dawladda federaalka oo ay ka walwalsan yihiin xaaladdu waxay ku dambeyn karto iyo qalalaas dhici kara oo gobolka Jantar Rogo ka dhigi kara marka waxa moodaa in xaaladdu hadda ay u muuqato mid wax walba la filan karo oo ay si deganaansho ah loo fiirinayo ayaad moodaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mawlid halkaad nagala socotaan waa BBC London wararkaas wixii ka soo kordhana waa idin la socodsiinayna